waxay ahayd gabar dhalinyaro ah, waxay fanka ku soo gashay si fudud, waxaana ay magac ku kasbatay si fudud oo aan dhib badan loo marin. Waxay ahayd fanaanad aad loo jecel yahay heesaheeda, waxay soo qaaday heese kala duwan oo dadku ay dhegaysan jireen, balse mar qura ayaa masraxa fanka laga waayay gabadhani. Qofkan ka hadlayo waa fanaanada Sacdiye Siman oo waqti ka hor ahaan jirtay gabar xagga fanka aad loogu jecel yahay, balse dad badan ayaa waxay isweydiin jireen waxa mar qura gabadhan masraxa xagga fanka loogu waayay, iyadoo aan bixinin faahfaahin kala duwan ayaa xagga fanka isaga fariisatay. Balse markii ugu horeysay Sacdiye Siman waa tani markii ay guursatay, waxaa la weydiiyey waxa ku kalifay inay ka fariisato fanka, waxaana ay tiri sidan: waxaan diidayaa in labadeeda wiil lagu dhaho hooyadiina ayaa meel hebel ka niikinaysay. Gabdhaha fanaaniinta iyo sidoo kale kuwa tiktoka ku jira intaba waxaan kula talin lahaa inay ka fikiraan mustaqbalkooda dambe iyo sidoo kale caruurta ay dhali doonaan, balse aysan fiirin dhaldhalaalka yar ee ay maanta haystaan, ayay tiri gabadhani mar ay kasoo muuqanaysay baraha bulshada. Sheekada Sacdiye Siman oo mar fanaanad aad loo jecel yahay ahayd ayaa qabsatay baraha bulshada, waxaa garab taagan labadeeda wiil, iyadana dhexda ayay ka taagan tahay. Waxay muujinaysaa inaysan jeclaysan in fanka ay kusii jirto tani markii ay guursatay. Waxay arrintaas ku sababaysay in fanka ay kusii jiri lahayd, arrintaas ay ku noqon lahayd mid saameyn ku yeelata mustaqbalkeeda dambe, sababtoo caruurteeda markay weynaadaan oo su'aalooyin kala duwan la weydiiyo waxaa lagu aflagaadeyn lahaa hooyada meel hebel ayay ka niikin jirtay. Anigu sidaas ayaan kaga haray xagga fanka, mana jeclaysan inaan kusii jiro hadda iyo wax u dhow intaba, maxaa yeelay hamigayga ugu weynaa waan gaaray. Alla waxa uu siiyey owlaad aan jeclaysto islamarkaana aan ku farxo, ayay tiri Sacdiye Siman oo marna ahayd fanaanad aad loo jeclaa.